بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب كسو دوالا مقالة تحنها أها أو كساب سنة مادة إنجليسكا قارهان جريد كسديدات مقالة روحا كسو هذلني وحقبدي كوات لبات سدحات أفراد شنات لحات تضبات سديدات سقالات marka kan wuxuu ku saabsan yahay waxqabadka tobnaad oo ah using dictionary isticmaalida eray bixiye kuna qoran page-ka 11aad using adigoo isticmaalaysid dictionary eray bixiye write qor the definition qeexitaanka of the following words erayada soo socdo adigoo isticmaalaysid eray bixiye qor qeexitaanka erayada soo socdo example marka asaga ku sameynaa mid ugu horeeyo eray ugu horeeyo waa obligation macnaheedu waa waajib muxuu yahay marka something waa shay that you must do ay waajib tahay inaad samayso for legal inuu sharci yahay darteed or ama moral reasons sababo la xiriiro moralka yani sababo kugu qasbaa in ay samaysid yani moral oo haysa niyada oo haysa marka obligation waajib waxa laga wadaa something waa shay that you must do ay waajib tahay inaad samayso sababta oo sameynaysid ay tahay for legal inuu sharci yahay shaygaas or ama moral reasons sababo niyadeed ayaa u sameynaysaa waxaas erayga labaad waa rescue asagana muxuu yahay micnihiisa to save something inaad shay ka badbaadiso from dangerous khatar or harmful situation ama xaalad waxyeelo leh ama xaalad waxyeelo badan leh marka rescue waxaa laga wadaa samata bixin inaad waxaan samata bixiso waxaa laga wadaa to save something inaad shay ka badbaadiso from dangerous khatar or harmful situation ama xaalad waxyeeladeeda wadato numberka ku sii xiga saddexaad waa supermarket muxuu yahay large store waa dukaan weyn ama bakhaar weyn where halkaasoo many different foods cuntooyin badan oo kala duwan and other goods iyo alaabo kale used oo laga isticmaalo in the home guriga are solid lagu iibiyo marka large store waa bakhaar ama dukaan weyn where halkaasoo many different foods cuntooyin badan oo kala duwan and other goods iyo alaabo kale used in the home ee guriga laga isticmaalo are solid oo lagu iibiyo numberka afraad waa funeral muxuu yahay asagana ceremony waa xaflad usually badanaana ah religious one xaflad diimeed for burying oo lagu aasaayo a dead person qof dhintay marka maxaan dhihi karnaa funeral tacsiyaan dhihi karnaa inuu yahay marka ceremony waa xaflad usually badanaana ah religious one xaflad diimeed for burying oo lagu aasaayo a dead person qof dhintay numberka shanaad waa modern muxuu yahay wax cusub oo xadiis ah ayuu noqonaya macnihiisa maxaa laga wadaa marka modern relating to present waa wax la xiriira joogtadan ama waqti xaadirkan and recent times iyo waqtiyadan ama dhawaanahan wax ku saabsan not ancient aan la xiriirin wixii hore oo remote past ama tagtadii fogeed ama tagtada fog aan la xiriirin numberka ku xiga lixaad waa paradise oo ah janno maxay tahay marka abode waa hoy where halkaasoo the righteous people dadka wanaagsan are rewarded lagu abaalmariyo here after maalinta aakhiro marka abode waa hoy where halkaasoo the righteous people dadka wanaagsan are rewarded lagu abaalmariyo here after maalinta aakhiro numberka toddobaad
life saver waa badbaadiye. life saver badbaadiye muxuu yahay marka someone waa ruux or something ama shay. marka badbaadiya wuxuu noqon karaa someone ama something that gives you oo adiga ku siiyo a lot of help caawinaad badan when you are in markii aad ku sugan tahay a very difficult situation xaalad aad u adag. marka someone waa ruux or something shay ama shay that gives you oo adiga ku siiyo a lot of help caawinaad badan when you are in markii aad ku sugan tahay a very difficult situation xaalad aad u adag. numberka kale ku xiga ee 8aad waa disaster. disaster micnaheeda waa aafo ama musiibo. marka disaster maxay tahay unexpected event waa dhacdo aan la rajaynaynin as sida a very bad accident shil aad u xun, flood fatahaad, or a fire ama dab that kills oo dilo a lot of people dad badan, or cause ama sababo a lot of damage waxyeelo fara badan. marka disaster waa musiibo micnaheedu waxay tahay marka unexpected event waa dhacdo aan la rajaynaynin as sida a very bad accident shil aad u xun, flood fatahaad, or a fire ama dab that kills oo dilo a lot of people dad badan, or cause ama dhaliyo a lot of damage waxyeelo fara badan. numberka 9aad waa criminal. criminal micnaheeda waa mujrim, waa dambiile. dambiile muxuu yahay marka a person waa qof who has committed kaasoo sameeyey a crime dambi. marka criminal oo dambiile ah a person waa qof who has committed kaasoo sameeyey a crime dambi ama jariimo. su-aasha 10aad ee kusii xigto waa steamer. micnaheeda waa markab ku socdo ama ku shaqeeyo uumiga. maxaa laga wadaa marka a ship waa markab or boat ama doon that moves oo ku socoto by steam power awoodda uumiga. by steam power awoodda uumiga. numberka 11aad pirates waa burcadbadeed. burcadbadeed maxaa laga wadaa marka individuals waa ashqaas who attack oo weeraro under rope isla markaasna dhaco ships maraakiibta at sea ee badda dul saaran. marka pirates burcadbadeed, individuals waa ashqaas who attack kuwaasoo weeraro under rope isla markaasna dhaco ships maraakiibta at sea ee badda dul saaran. numberka 12aad waa merchant. merchant micnaheedu waa ganacsade. marka muxuu yahay ganacsadahan a person waa qof who buys kaasoo soo iibsado or sells ama iska sii iibiyo goods alaab in large quantities weliba tiro badan oo alaab ah soo iibsado iskana sii iibiyo. especially gaar ahaan one waa midka who imports wax soo dhoofsado or exports ama wax sii dhoofiyo. marka gaar ahaan waa midka sameeya import oo wax soo dhoofsado ama sameeya export wax sii dhoofiyo. ereyga 13aad waa compensate oo micnaheedu tahay magdhawid. magdhawid micnaheedu maxaa marka ama qeexitaankiisa amount of money waa xaddi lacageed that is paid oo la siiyo to someone ruux because sababtoo ah they have been hurt ruuxaas waa la dhaawacay ama waa la dhibaateeyey. marka amount of money waa xaddi lacageed that is paid oo la siiyo to someone ruux because sababtoo ah they have been hurt waa la dhaawacay ama waa la dhibaateeyey qofkaas. numberka 14aad waa horror. horror micnaheeda waa argagax ama cabsi. micnaheedu maxaa marka definitionkiisa an intense feeling of a fear. an intense feeling of a fear waa dareen daran oo cabsi ah. intense waxaa lahaa daran, feelingna waa dareen, fearna waa cabsi. maxay noqonaysaa marka an intense feeling of a fear
waa dareen daran oo cabsi ah or shock ama argagax ah. numberka 15aad waa earthquake dhulgariir. dhulgariir muxuu yahay marka? a sudden violent shaking waa ruxmasho xoog leh oo degdeg ah of the ground oo ku dhacda dhulka. typically caadi ahaanna causing sababto great destruction burbur xoog leh as a result of ayadoo ugu wacan tahay movement dhaqdhaqaaqa within earth's crust ee uu sameeyo dhulka qolofkiisa sare. earth's crust waxaa la qolofka sare ee dhulka wuxuu sameynaa dhaqdhaqaaq. dhaqdhaqaaqaas waxay sababaysaa marka inuu yimaado great destruction burbur xoog leh. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa ugu dambeyn. haddii marka ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka waxaa kaa dalbanaynaa ama kaa codsanaynaa inaa subscribe dhahato aad kusoo biirto. haddii hore aad subscribe ay ku aheedna inaa muuqaalka laag na saarto share na garayso. waa mahadsantahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.